Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada asxaabteeda ummada Soomaaliyeed meel kasta aad ku sugan tihiin. Waxaan maanta halkan ka ambaqaadi doonaa taariikh nololeedkii halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Halka uu ku dhashay, taariikh nololeedkiisa, dagaaladii ugu badnaa ee uu soo galay, iyo weliba waxyaabihii ay isweydaarsadeen nimankii Ingiriis ee markaa haystay maxmiyadii Ingiriiska ee waddanka magaalada Berbera, iyo jawaabihii uu siiyey. Waxaynu markaa kusoo qaadi doonaa taariikho badan oo uu lahaa, iyo weliba 120 gabay oo uu tiriyey intii uu noolaa, ilaa iyo intii uu ka geeriyoon doono 120 gabay oo uu tiriyey. Waxaa kaloo aynu halkan kusoo qaadan doonaa taariikhdiisa mugga leh ee aan la soo koobi karin qayb ka mid ah. Waxaynu ku bilaabi doonaa dhalashadiisii, halka uu ku dhashay, ku barbaaray, ku koray. Sida aynu ognahay, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa loogu magacaabi jiray magaciisa oo saddexan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ama Maxamed Cabdulla Xasan. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu ku dhashay markay taariikhdu ahayd 1856 guga la baxay ama la odhan jiray Gobaysane. Wuxuu ahaa gu barwaaqo ah oo dad iyo dunyaba wixii dhashay xanaaqaad noqdeen. Wuxuuna ku dhashay balliga la yidhaahdo Samadeeqo oo 7 mayl u jira Buuhoodle, kana xiga dhanka waqooyi. Guud ahaan dalka waxaa loo yaqaanaa Nugaal. Hooyadiis waxaa la odhan jiray Carra Seed Magan. Qur-aankana wuxuu ku bartay gurigooda. Cilmigana wuxuu ku raad qaaday xerti fadhiyi jirtay Nugaal, xarunteeduna ahayd dooxada la yidhaahdo Casuura iyo Yaheel. Abbaaro 1892 waxa uu u kacay Maka iyo Madiina. Waxay israaceen 13 wadaad oo ay isku xer ahaayeen. 2 gu iyo dheeraad bay Maka iyo Madiina ku maqnaayeen. 1895 ayaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku soo noqday dhulka Soomaaliyeed, wuxuuna ka soo degay xeebta magaalada Berbera oo markaas Muslin iyo gaalba aad loo deganaa. Waxaa la yidhi markuu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu soo degay doonidii ka soo degay, ayaa Ingiriisku ka warsaday dekedda cashuur inuu bixiyo. Wuxuu ugu afceliyey, adiga yaa cashuurta ka qaaday markaa halkan ka soo degtay. Dabadeedna afceliyihii baa ku yidhi gaalkii, waa wadaad waalana inaga daa. Sidaa daraaddeed waxaa Ingiriisku ku magacaabi jiray wadaadkii waalaa. Dagaalkii u horreeyey ee uu qaado Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, ama ay iskaga hor yimaadaan dalkii Ingiriiska markaa gumaysigii Ingiriiska, waxa uu bilaabmay 1900kii. ayaa Ingiriisku col lixaad leh u qalqaaliyey si loo damiyo dabka halkaas ka baxaya intaanu dhulka ku fidin. Haddaba xabaddii maalintaa la riday waxay dhacaysay 20 gu iyo intii u dhaxaysay. Inta la hubo ama taariikhdooda la hayo, 41 goobood bay Ingiriiska ku kulmeen. Kuwii ugu waaweynaa ama dagaalka xumi ka dhacay waxaa ka mid ahaa kuwan: Afbakayle waxay dhacday 5tii bishii 3aad 1901. Faradhidin bishii 7aad 16keedii 1901. Beerdhiga bishii 8aad 10keedii 1902. Cagaarweyne bishii 4aad 17keedii 1903. Daraatoole bishii 4aad 18keedii 1903. Jidbaale bishii 1aad 10keedii 1904. Ruuga bishii 10aad 9keedii 1913. iyo Dayuuradii bishii 1aad 1919 dhacday. Ingiriisku dagaalada wuxuu u qaybiyey 3 duulaan oo mid waliba socday dhowr gu, mid walibana lahaa 2 tab iyo xirabo gaar ah iyo xoolo loogu talagalay. In kastoo aan guul laga gaarin, dadka Soomaalida markay rumi geyday, wuxuu u kala jabay 2 meelood: dad gaalka raacay oo garab iyo gaashaan u noqday, iyo dad daraawiish raacay
oo jihaadkii la galay. halkaas aan kasii anba qaadi doonaa qeybta labaad ee yani barnaamijka taariikh nololeedka sayid maxamed cabdulla xasan dhalashadiisa iyo waayihiisi kala duwanaa. waa anigoo idin leh nabaday nabaday nabaday.